waddan aad u yar marka la eego baaxad ahaan ahna kan ugu qanisan caalamka marka la eego dakhliga dadkiisa soo gala dal leh kaydka saddexaad ee ugu weyn gaaska dabiiciga ee caalamka dalka ugu horumarka sarreeya wadamada Carbeed dal baaxadiisa dhuleed marka la eego aad u yar haddana saameyn aad u ballaaran ku leh mandiqada uu ku yaalo ee bariga dhexe ku soo dhawaada macluumaad iyo xaqiiqooyin ku saabsan dalka Qatar جزيرة لمود كخضر وحاي دعدا قلبيت كآسيا أمابا وقوي بري جزيرة لمود كعربتا ودال باحدهان آدو ير مركا لأيغو جهادا كونفوريد أو حدود كالالي هايدال كالسعودية انت صوهرتي وحا كحيغا بيها قعان كبيرشيا باحدهان وحا وكفر ليا كوبيو 10,000 أو كيلومترو سكوريغا وانا انكا ير marka laba loo qaybiyo baaxadda gobolka awdal ee dalkeena Soomaaliya waxa ku nool dad gaaraya 2.6 milyan oo qof dadka Qatariga ah ee u dhashay dalkaasi ayaa tiradaasi ka ah 11.6% oo u dhiganta 318,000 oo qof 88.4% waa tirada soo hartay dadka dalkaasi ku nool waa ajnabi Qatar waxa ay ka mid tahay dalalka ajaanibta ku nool ay ka badan yihiin muwaadiniinta u dhashay sidoo kale 94% dadka dalkaasi guud ahaan ka shaqeeya waa ajaanib Qatar waa dalka ugu qanisan caalamka halka dadkiisu ay soo galaan dakhliga ugu badan sanadkii lacag tiro ahaan kor u dhaafaysa $128,000 ayaa qofka Qatariga ah soo gasha sanadkii sidoo kale dalka waa mid qiimeynta heerka aadanuhu uu aad u sareeyo waxaana dalkan lagu qeexaa dalka wadamada Carabta ugu horumarka sareeya waa dal dhaqaale badan haysta waxaana uu hodan ku yahay saliidda gaar ahaan gaaska dabiiciga ah waa dalka saddexaad ee kaydka gaaska dabiiciga ugu ballaaran haysta caalamka kadib dalalka Ruushka iyo sidoo kale dalka Iran tan iyo sanadkii 2012 Qatar ayaa ah dalka ugu hodansan caalamka dhaqaalaha dalka kaliya kuma tirsana wax soo saarka saliidda balse waa dal maalgelin ballaaran ku leh daafaha dunida in ka badan $100 bilyan ayay daafaha dunida Qatar maalgelin ahaan ugu leeyihiin waxyaabaha ay maalgelin ahaan wax ka leeyihiin dalka Qatar ee caalamka ku yaala waxa kamid ah shirkadda baabuurta ee Volkswagen shirkadda shidaalka ee Shell garoonka caalamiga ah ee London ku yaala ee Heathrow Airport bangiga Barclays ee Ingiriiska ku yaalo ayaa qayb ka ah maalgelintaasi kooxda Paris Saint-Germain ee horyaalka Ligue 1 dalka Faransiiska ka ciyaarta ayaa maalgelinta Qatar qayb ka ah iyo shirkado kale oo badan ayay markaa Qatar maalgelin ahaan caalamka ugu leedahay Qatar kaliya kuma xoogana dhaqaalaha sidoo kale waxa ay wax ka jaangoysaa siyaasadda mandiqada ay ku taalo ee bariga dhexe waa dal siyaasad ahaan aad dhexdhexaad u ah isla markaana xiriir wanaagsan la leh dalalka bariga dhexe aadka ugu loolama ee Mareykanka iyo Iran oo siyaasad ahaan ah laba dal oo aad u kala fog isla markaana isdiidan sidoo kale dhinaca warbaahinta ayay awood aad u wanaagsan ku leeyihiin oo waxa ay leeyihiin telefishinka caalamiga ee Al Jazeera waa mid kamida TV-yada ugu afka dheer markay timaado warbaahinta caalamka sidoo kale waxa ay leeyihiin TV-ga ciyaaraha aadka u baahiya ee Bein Sport saaxiibayaal waa naga intaa mowduuceeni maanta oo ku saabsanaa macluumaad iyo xaqiiqooyin ku aadan dalka Qatar tan iyo mowduuceena kan xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo